السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دhowaada casharkeedii sideedaad English grammar. maanta waxaynu eegaynaa noun oo aynu horey u soo qaadanay. noun waa magac. maanta si gaar ah waxaynu eegaynaa noun oo singular ah, kali ah ama iyadoo ah plural jamaac ah oo nouns ah. marka kelmadahan hoos ku qoran oo dhan waxay noqon doonaa waa wada nouns iyagoo singular ah iyo iyagoo plural ah. marka aynu bilaabano kelmadda ugu horeysa a bed. bed waa sariir, waa hal bed oo eedaasaa ku sheegaysa. a bed sariir, beds sariiro waa laba iyo wixii ka badan. an apple, apples tufaax. an apple waa tufaax, hal tufaaxa. apples tufaaxyo. a boy, wiil, boys wiilal. a tiger shabeel, tigers shabeello. a book waa buug, books buugaag. a house guri, houses guryo. a bus buses basasyaal. a box sanduuq, boxes sanduuqyaal ama sanduuqyo. a glass quraarad, glasses quraarado. markaas kelmadaha hore oo dhan bed, apple waxuma raacaysa s, laakiinse markaynu soo gaadhno buses es baa sii raacaysa. es saddexdaa ugu dambeeya es baa raacaya. haddana waxaynu u gudbi doonaa kelmadaha kale oo singular iyo plural ah oo iyagana si kaloo gaara marka spellingka loo qoro. aynu bilaabano waxa ugu horeysa city magaalo, waa hal magaalo. cities magaalooyin. a baby cunug, babies caruur ama cunugyo. markay kelmadaha y-da ku dhamaado oo dhan waxay noqdaan ies. haddana waxaynu eegi doonaa labadan kelmadood oo f ku dhamaada. a leaf, leaf waa caleen, caleenta dhirta saarsaaran baa la dhahdaa leaf. leaves caleemo. a knife midi, midida wax lagu gooyo. knifes midiyaal laba iyo wixii ka badan. a photo waa sawir ama waa picture. photo photos fotooyin ama sawiro. man nin, man rag. woman gabadh. women haween ama dumar. a person hal qof. people dad. kelmadda ugu dambeysa waxa weeyaan sheep, ari waa hal neef oo ariya. sheep ari. markay kelida tahay a baa raacda, laakiinse spellingku isma bedelo. markay jamaacad tahayna spellingku isma bedelo, si walba loo qoraya, laakiinse a-daasa lagu kala garanaya. waa kelmadahan iyagu isbedelin, kelmado badan baa jira. haddaynu eegno man and woman, wuxuunba isbedelaya, idaasunba isbedelaysa. marka kelmaduhu qaarna s baa raacda, qaar es baa raacda, qaar ies baa raaca. marka qaarna kelmad baa isbedesha, qaarna ismaba bedelaan. marka jamaaca iyo pluralku kelmadaha way fara badan yihiin nounsku, marka isku si uun bay isu bedbedelaan. haddana waxaynu eegi doonaa qaybtii labaad ee casharka inagoo isticmaalayna sentence. okay, waxaynu isticmaali doonaa waxaynu eegi doonaa dhowr kelmadood oo nouns ah oo sentence ah, iyagoo jamaaca ah iyo iyagoo keli ah. waxaanaynu isticmaali doonaa afartan kelmadood: this, that, these, those. this waa kan oo dhow. that waa kan, waa kaa oo fog. these waa kuwan oo dhow. those waa kuwaas oo fog. marka waxaa la isku yidhahdaa magacooda in English waxaa la isku yidhahdaa demonstrative pronoun. demonstrative pronoun waa kelmadaha loo isticmaalo in wax lagu tilmaamo.
okay aynu eegno sentence ka horeeya ama jumlada horeysa this is a book kani waa book this is a book kani waa book waa book ku dhow that is a bag that is a bag taasi waa shandad waanay fog tahay oo wax ka fog waana singular labadaasi haddana waxaynu eegaynaa jamaacada markay yihiin oo markii hore s baynu isticmaalay hadda r baa la isticmaalayaa these are books kuwani waa buugaag these are books kuwani waa buugaag waa laba book iyo wixii ka badan oo ku dhow sentence ka u dambeeyaynu eegi doonaa those are bags those are bags kuwaas fogi waa buugag kuwa fogi waa buugag marka waa jamaaca casharku maanta intaas inoogu eeg yahay oo nouns oo singular oo plural ah iyo iyagoo sentence oo la isticmaalayo afartan kalmadood ee in la yiraahdo demonstrative pronouns this can that ka these kuwan those kuwa casharku maanta intaas inoogu eeg yahay intaanu casharka dambe ku kulmi doono fadlan ha hilmaamin subscribe thank you very much for watching